halkani waa Shaariba Show TV fadlan haddaad ku cusub tahay oo markii koowaad soo boqotay ay tahay subscribe ka saar si aad mar walba aad ula socotid iyo like-ta iyo share si aad asxaabtaadana aad ula sii wadaagtid aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay inaad subscribe saartid Shaariba Show TV oo aad mar walba kula socotid bandhiga Shaariba Show inaan ahay qof dilaa iyadoo danta laga lahaa ay ahayd in la burburiyo sumcadeeda iyo shakhsiyadeeda si loo burburiyo dhambaalkii aan waday anigoo ahna gudoomiyaha kooxda tala ku nool ee u dhaqaaqda bedelida dhaqamada qaldamay ee Soomaaliyeed iyo taariikhda qaldanta ee Soomaaliyeed sida in la bedelo caalanka iyo astaanta qaranka in la tirtiro haybta koorka in dib loo qoro taariikhdii waxaan sameeyay statements ama hadal aan iri ayaa muddo waxa ku mashquulsanaa dadka cadawga Soomaalida ah oo runtii ka soo horjeeda diinta Islaamka dhaqanka Soomaaliyeed iyo horsocodka wadankeena Soomaaliyeed nacamna in wadanka Soomaaliyeed dib loo xoreeyo oo laga xoreeyo dhaqamada khaldan iyo diimaha khaldan ee naloo geliyay ama dhaqankeena ama calankeena ama astaanteena qaranka dadka iyagaahi waa cadawga wadanka Soomaaliya waa cadawga diinta Islaamka dadkaasi marka waxaan hore idinku sheegay markaan ogaaday in ay soo socoto in la dacaayideeyo isla markaasna ay soo socoto in marqaatiya la keeno waxaan qaadanay go'aan haddii aan ay reer talkuno go'aankan qaadanay wuxuu ahaa inaan anagu hogaamino inaan jideyno ama jihayno dadka marqaatiyalka ee ay keensanayaan waxa laga yaabaa dadka qaarkiis inaysan fahmin marka aan leeyahay inaan jihayno marqaati qof cadow kugu u wato sharciga caalamka ama maxkamad marka la joogo waxay u kala baxdaa maxkamaduhu mid la yiraahdo public opinion in maxkamad caadi ah maxkamadda public opinion ka la yiraahdo ayaan hadda ku jirnaa waxaan ku doodayno aniga iyo kuwa qaran dumiska ee ka soo horjeeda dhaqanka diinta iyo horumarka dalkeena iyagoo u arka inay ka helayaan sandareerto una adeegaya gacmo shisheeye ama dawladda shisheeye waxaan jeclahay marka inaan idiin sheego waxa aan ka wada jihaynta aan jihaynay marka aad maxkamad tagto aadna tahay lawyer ama sharci yaqaan aad tahay waxaad awood u leedahay haddii aad og tahay in waxa la soo wado ama kiiska adi ka soo horjeeda uu been yahay in aad jihayso marqaatigaas waxaad ku jihaynaysaa inaad u sheegto ama aad keento erey been ah laakiin isaga la qurxoon markaad ereygaas beenta oo isaga la qurxoon keento qofkii wuxuu sii raacayaa ereygii beenta isaga la qurxoona isla markaasna wuxuu galayaa khaladaad fara badan oo hadhow aad kaga dabatay kartid maalintii markii aan hadlayay waxaan iri waxaan jiray 16 sano 17 sano 16 sano 17 sano ujeedadii aan ka wada waxay ahayd arrintaasi in dadka marqaatiga noqonaya ay raacaan oo ay ka dhigtaan halku dhig kadibna ay inkiraan waxyaabo xaqiiqo ah oo hadhow gadaal ka soo baxay laguna qaban karo sida dhacday markii aan iri waxaan jiraa 16 17 marqaatiyalkii la keenay waxay la yimaadeen dhowr shay oo maanta aan rabo halkan idinku tuso ama aad aragteenba inay been yihiin kow waxay yiraahdeen wuxuu ahaa Sufyaan Sheekh Ahmed Jabhad sidaad ku maqasheen nimanka la soo adeegsaday dawladaha shay soo adeegsadeen ee bixiya marqaatiga mid wuxuu yiri waxa uu ahaa staffka goonida ama bodyguardka goonida oo khaaska u ah wasiirkii gacmo dheer nu dhignay ee ahaa inaan hogaamino dadka marqaatiga lagu furay
ama markhaatiga beenta igu furay arrintaas marka aan saxo anigu intii aanan radio muqdisho ka shaqo gelin waxaan ahaa macallin waxaan ka shaqaynayay gobolka jubbada dhexe degmada jilib waxaan macallin ka ahaa dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Nuur Xuseen waxaa maanta weli jooga waxaa halkan ila jooga waxaa galabtay ila joogay mid ka mid ahaa ardadii aan macallin ku ahaa waxaan ahaa macallin dhiga maadada carabiga iyo diinka luqadda carabiga iyo diinta islaamka muddo ayaana rajilib waa yaqaanaan magaca la igu yeeri jiray markaasi ka soo magacayga ii qoran ee sharciga ahaa waxaan lahaa naynaastaydu ma ahayn taakeeye rajilib ima yaqaanaan taakeeye rajilib waxay yaqaanaan magaca kale wuxuu ahaa ustaad makeup waa ogahay inuusan qurux badnayn laakiin waxaana nin yar oo aad u labis badan magacana waxaa igu dhejiyey ardadii aan u ahaa macallinka maantay qofka reer jilib joogay waqtigaa joogay ee xusuustaahi wuxuu xusuusan karaa ustaad Michael qofkii la oran jiray macallin dhiga carabiga diinka ka dhiga dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Nuur Xuseen wax xusuusan kartaa waxaan jeclahay marka inaan xuso dadkii aan saaxiibada ahay aan isla soo jirin sida ninka la yiraahdo Daawud Cali Raaxo ya caalin oo ahaa nin gaal jecla iyo Ibrahim Maxamed aadan Ibrahim Akhiro oo ahaa nin garra ah iyo gaal kacyo magaciisa ma xusuusto oo ahaa shiiqal waxay ahayn saaxiibadayda dadka aan sida goorida isku dhownahay waxaan codsanayaa marka ardadii waqtiga aan u ahaa macallinka carabiga diinka ee dhiganaysa dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Nuur qofka videogan maqlaahi inuu soo duubo video ama uu la soo xiriiro miidiyaha dad badana aan ku noqday inay rifaan Sufyaan Sheekh Axmed adigu dhinaca ka gal ila soo xiriir ama la xiriir social media u sheeg marqaatigaas waa marqaati xaq 1991 markii Siyaad Barre uu ka baxay Muqdisho dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Nuur ka shaqaynayna ay burburtay dawladii ciidamo ay soo galeen la isku xabadiyay magaaladii Jilib waa ka soo tegay waxaan imid radio Muqdisho markaan Muqdisho imid waxaan imid radio Muqdisho oo markii horeba markii Siyaad Barre uu ka baxay Muqdisho dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Nuur ka shaqaynayna ay burburtay dawladii ciidamo ay soo galeen la isku xabadiyay magaaladii Jilib waa ka soo tegay waxaan imid radio Muqdisho markaan Muqdisho imid waxaan imid radio Muqdisho oo markii horeba aan jeclaa xiisayn jiray dhowr mar intii Siyaad Barre uu joogay markii aan imaadoon xamar soo booqdo aan tagi jiray inaan noqdo wariye meeshii ayaan imid halkaas ayaan shaqada ka bilaabay xaqiiqdu waxay tahay waxaan ahaa nin ka firfircoon kana cilmi badan dadka intooda badan ee ka shaqaynaysa markaas radio Muqdisho taasi waxay ka soo horjeedaa in la yiraahdo jabhadu ahaa waxna ma uusan aqoonin ama wuxuu la socday ciidamadii General Aidi haddii aan 1991 aan Jilib ka imid haddii aan ahaa macallin dhiga maadada carabiga diinka isla sanadkaasna haddii dawladii ay sii jiri lahayd ku xaroon lahaa jaamacadda waxaad fahmi kartaan in aan ka aqoon badnaa dad badan oo aan soo maray waddada aan soo maray waa fahmi kartaan markaad macallin noqonaysid tababarka loo baahan yahay iyo wax loo baahan inaad soo martid arrintaasi waxay ka soo horjeedaa completely marqaatiga ay fureen saddexdooduba isku raaceen inaan ahaa nin jabhada ahaa nin bodyguard ah oo waardiye ah watay qori iyo tuute arrintaas ayaa diidaysa nin mutacallima polished ah soo shaqeeyay muddo ku soo dhaqmay gobolka Jubbada Dhexe weligiis aan jabhad noqonin weligiis aan qori qaadanin waad fahmi kartaan description-ka ay bixiyeen inuu yahay qalad
sababta keentay inay descriptionkaas ama iga bixiyaan sharaxaadaasna waxay because aniga ku hogaamiyo waxaan ku iri markii hore waxaan jiray 16 sano 17 sano haddii aan sheegi lahaa taariikhdan aan hadda maanta idiin sheegayo ma aysan dhehen wuxuu ahaa jabhad ma aysan dhehen wuxuu la socday ciidamadii General Aidid because waxay ahaa ladi logical wayna soo hubi lahayn xaqiiqdii oo wax fudud oo la heli karo in xaqiiqda ay tahay waxaan sheegay inaan macallin ahaa laakiin maadaama ay aamineen 17 sano 16 sano inuusan noqon karin macallin waxay go'aansadeen inay igu cambaareeyaan ama dusha ii saaraan waxaanan aniga ahay taasi waa qodobka koowaad waxay kaloo ku dhaceen dabinta aan u dhigay oo ahayd inay diidaan inay sheegaan laba qodob oo kaleeto oo beena kow waxay yidhaahdeen markii falkii lagu dilay nimanka afarta ay sheegeen waa sida igu sheegeen ay yiraahdeen igu eedeeyeen aniga waan ka soo cararay raadiyo Muqdisho iskuma aysan raacin arrintaas ninka mid wuxuu yiri waa ka soo cararay ninna wuxuu yiri wisi joog waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan la wadaago sidaan horeba wareysi ugu bixiyay inaan ahaa wariyaha khaaska ah ee ra'iisul wasaarihii markaas jiray Umar Arte Qaalib waxaan sidoo kale access furan u lahaa inaan tago xafiiska madaxweynaha Cali Mahdi markaas haddii ay sidaas xaqiiq tahay marka nin wariyaa oo sida ay sheegeen intuu sidii xoolihii ula baxay niman wariyaa ku dilay bilinka ama sartii wasaaradda warfaafinta musawixii u dhawaa intuu midba watay ayadoo loo joogo barqacad loo jeedo kusoo toogtay soo baxay mid kala watay soo toogtay macquul ma noqoteen nin ra'iisul wasaaraha ama madaxweyne inuu ogolaado xafiiskiisa ama loo ogolaado inuu noqdo wariyaha ra'iisul wasaaraha waxaan kaloo sidoo kale macquul noqoteen haddii aan ahay nin aqoontiisu ay liidato oo iska xoogsaday ayadan lama ogolaadeen ragga marqaatiga furay marqaatiga beenta furay nin ka mid ayaa wuxuu yiri qualificationkiisu ma uusan gaarinba because nin wax barta ma uusan ahayn waxaa laga rabaa sidii uu ku diidi lahaa waxbarashadeedii aan soo maray ee marqaatiga la maantay waxaa kaloo cajiib ah dadka marqaatiga loo qabsaday nin ka mid ihii maba jooginba waqtiga ayaga raadiyo Muqdisho ninkaasi waxaa annaga haddaan hareetala ku nool naga mamnuuca inaan shakhsi magac dhawno annagoo diidan in ay meesha ku dhimato respectability-geena iyo sumcaddeena waxaan u taaganahay inaan saxno dhaqanka taariikhda iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan nahay macallimiintii Soomaalida waxaan isu aragnaa inaan nahay macallimiinta Soomaalida waxaan isu arkaa inaan nahay macallin qaranka Soomaaliyeed rabayn waxbaro bulshada Soomaaliyeed sidaa daraadeed iima habboona inaan qof magaciis sheego balse waxaad garan kartaa nin ka mid ah ragga marqaatiga furay maalinta dhibkaasi dhacayo sida ay taariikhda ku sheegeen oo la yiri 8 April bay ahayd qofkaasi ma uusan joogin Muqdisho iyo Radio Muqdisho mid waxaa marka wax la yaabaa adigoon joogin Radio Muqdisho adoon even joogin Mogadisho inaan marqaati furtilo tiraadid dad budil was something very shameful waxay caddaynaysaa taasi marka beenta iyo waxaas lagu soo odeeyay inaysan waxba ka jirin waxa uu shakhsigaas qiranayaa in warka loo soo sheegay asagu uusan goobjoog ba ahayn isagaa qiranaya waxaa kale ninka kale uu qiranayaa ninka ugu hadalka dheeraa wuxuu qiranayaa in marka ugu dambaysa wareysigiisa wuxuu leeyahay waa ku tuhunsana wariyuhu dhowr mar uu ku celiyay inkastoo wariyuhu laftirkiisu uusan samaynin wareysi cadaalada uu ku celiyay dhowr mar wuxuuna runtii ku celiyay ama uu weydiiyey in uu goobjoog ah markasta wuxuu yiri goobjoog baanan ahayn wuxuu yiri waa la ii sheegay haddii marka ay sidaa tahay haddii loo sheegay marqaati ma noqon karo hore ayaan waxaan idiin iri
waxaa